السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له الصوماليات وإذي سلامي وسيتين مي في عنتين أنا نوافي عنا الحمد لله صباح إيه نوت هذا ينسوق كعني إذا قبل سيتين الحمد لله إذا كان السيداس أو كلا يعني إذا رجينا بريها نيت ما نسود فيديو بيس أدونك يلا كلامك الحمد لله إلهنا وضفض ذايا لما أنتم بإلهنا وضفض ذايا qofka dib haysta ilaahay dibkaha ka qaado qof walba wuxuu jecel yahay oo khayr ugu jiro ilaahay ha siiyo waan inii wada salaamay waxaan idin wadaa another topic oo daba socda video aan maalahooda soo duubay ilmaheena hadda soo kacayaan qaabka aan ugu goyn lahayn nin Soomaali marba inaan arooso gabar walba oo teen haysata way weydiin kartaa iyo wiil walba oo teen haysta bal gabadhaada hoos ahaan intaad ureystid fariiso weydii waxay ku dhahaysaa ma rabo nin Soomaali inaan guursado haddii marka ilmaheeni noo soo kacaya hata ee cararayaan haddii Soomaali dhan waxaa dhici kartaba wandhay inay noqoto Soomaali dhan in la waayo oo baaba'adaba markaas qaabka ay ku baaba'een ee Soomaali jirto weligeedba inay noo jirto waxaan u rabnaa waa in ay odayaasheena gabdhaha wiilasha had isqabaan oo hadda isguursanayaan kuwii hore wayba tageenba kuwii hore way tageen wixii isla joogo ilaahay dartiis iskula joogo oo ilaahay mintaqaana safe garay wixii kala yaacay kala noqdeen laakiin dadka hadda isguursanayaan kuwa hadda soo kacayaan isguursanaan oo yani beautiful hadday rabaan inay race gareeyaan ama kuwa hadda is haystaan oo mintaqaana saas qarqarka joogaan ayaan rabaa inay ku socoto message-kan inaan la hadlo ayaan rabaa sifa aan ugu geyno dhasheena soo bixaysa in ilmihii yaryaraa ee markaad weydiisay ku dhahdo oh I don't want gabar Soomaali I don't want mataqaana nin Soomaali wax ka fiican male laakiin qaabkii oo familiyaasha wadanka qurbaha loo race gareyn lahaa ayaa ka maqan qaabka marka halkan ayuu ku socdaa qaabka channelkayga aad ka helaysaa bash channel ayaad ka helaysaa qaabka ninka qurbaha jooga in uu rayskiisa u race gareeya how uu u race gareeya his family this channel ayaad ka helaysaa marka haddaan ka hadlo inaan videoga dheereeyaan diidayaa mar walba wax yar aan iisoo duuba hadduu ilaahay yiraa haddaan ka hadlo waxay noqonaysaa wiilkaas inuu istaaga uu noqdo mataqaanaa father family yaal dhahaa mataqaanaa waxaa la yiraahdaa wiilka ka warqaba xabiibtiisa guriga u joogto ee ilmihiisa yaryaroo guriga joogaan gabadhaada inaad only aad ka soo shaqeynin only waxaa lagu leeyahay war shaqo okay waa shaqo bilalka ayaa lagu bixiyaa laakiin quality time la qaada familkaada what's the quality time waxay tahay waqti samayso od ciyaalkaada la qaadatid naxariis tusi gabadha aad la joogtid inaad u naxariisatid soodaad ilmahaada ayaa ku arkaaya gabadhii oo saaki soo kici weysi oo ilmihiina iska daba wareegaysanayaan aabihiina uu shaqo kuleen ka waran gabadhaada 8 years ka jirta gabadhaada 9 ka jirta gabadhaada 8 ka jirta wiilkaada 9 uu arkoyaa aduu ku fiirinooyo ilmaha aan gurigaha ku haysano waa fiirisaasay noo wada fiirinayaan qof wax walba aabahood iyo hooyadood ku dhaqmaan ee hadhow ku dhaqmayaan laakiin adigu markuu ku arka wiilkaadii ama gabadha yani calafka ilaahay isku kaadaray oo xaaskaada maanta oo qofna kala haysan ilaahay mooyaane haddaad u naxariistid yah ilmahaas ma dhahayaan gabar Soomaali ma rabi nin Soomaali ma rabi kama maqlaysid barkee waxay arkayaanba aabahood oo hooyadood caawinaya aabahood oo mataqaanaa ayaga time la qaadanaya ilmaha tiinka waad ogtihiin way tiinka way dhib badan yihiin ilmaha marka hadda soo kacaan to alif years 13 years 14 years 15 jir 16 jir mataqaanaa 12 jir waxay rabaa in meel la geeyo gabadha waxay haysataa xeen kala guriga u joogto 4 kaloo yaryaraa guriga u joogto 5 kaloo yaryaraa guriga u joogto ya
ma iska daba ordi karto maxaa lagaa rabaa marka adiga faadarka maxaa lagaaga baahan inaad qabatid family fatherka markaan ku leeyahay maxaa lagaa rabaa inaad qabatid is only ma aha in lin dhawr digsiga naagta waxay dhahaysaa cunto kari waxaas sheekadaas meekada saas ma aha qofku dhahoy male every single day cunto kari laakiin baro sida loo kariyo baro sida loo kariyo anything can happen inaad ilmahaada qof kale soo dhaxgelinood eedi iyo habaryar iyo naag diriskaada oo mataqaanaa hadhow kuurkuur intay kugu qabato mataqaanaa meeqa gabdhood taasna qaybaan kasoo diyaarin doonaa meeqa gabdhood gabar intay cidooda intay u direen ay dhahday ka ay soo caabeen ka qaade ha sameeyna asaga ha qabto daad shaqada asaga inuu qabto waa ya qof ku dhahay male every single day cunto kari ku dhahay ma jirto laakiin gabadha markay jirin tahay gacan qabo cuntadaada ku tuuro ilmahaada cuntada u karay markay gabadhaas walactaay markay gabadha uurka leed xaamilatay kici karin markay gabadha ebi jirintahay jiri alla soo maagtay ee jirintoo kici karin u naxariisa shaqadaada kool garee call your jobkaada this is important familkaada fasti ka dhig not inay kuu noqoto shaqadaada number 1 no your family is number 1 familkaada waa number 1 waa shaqada iyo wax walba iyo kan kala waxay soo marayaan gadaal ka dhigo shaqadaada maalintaas wax ilmahaada gabadha ka kala celi waxaad aad walaal macana iisi kiniinkeeda si u naxariisa qolka ku soo xir waxaad dhaysaa anaa kuwa baraanka ka geynaa wax weeyar balba nasabal bal sidee tahay bal sidee noqotay wax yar wax u soo qas juice yar u soo shiid dhiigeeda iyo wixii isbitaalka gee soo jagare yaani ha tusi naxariis anaga waxaan nahay roobadka camal aan u shaqeynaa hooyooyinka guriga joogaan oo ilmaha yar yar haystaan roobadka camal aan u shaqeynaa waxaa dhici karta inaa cunto maanta dhan waxaa dhici karta gabdhahaas guriga joogaan oo ilmaha daba wareeganayaan qada iyo qurac inay waa inay iloobaan hadda ani ilmahayga alxamdulillah waxay waba iisoo kuustay hadda laakiin beri waxaa jirto breakfast quracdii aan diyaarsaday aan microwave-ka geliyey inaan ku iloobo cuninba sidaan busy u ahay darteed ana I feel still waa dareemayo gabdhaha hadda ku jiraan ilaa hadda xaaladaasi ya marka waxaa loo baahan yahay qof saas u garab qabto oo garab istaago ilmahaadana road model u noqo kuwa aad korinaysa road model u noqo kuwan uu hadda ilaahay ku sii oteysatid alxamdulillah dheh beautiful family ka soo dhig in la qurba ayaan joognaa waxyaabaha lagu soo shubay ee gaalada iskuul ka shubay adag ka sii shub maalin father dhigi qabso oo ilmahaada la hadashid oo la sheekaysid oo story ugu sheekaysid qabsa maalintaas maalin ayada iyo adiga islaantaada kaliya markay ilmaha ka kala saxdaan oo habeenkii ilmaha ka kala saxdaan labadiin only between today xaaji waa ani adiga ya yani that's called family in mutaqana family in father marka naxariinta ee ku yar naxariista badiya waa wiil fiican yaatiin ilaa waxaan rabnaa ilmaha aan soo koronayno ID-ga ku jiro bal taasna soo weydiiye gabdhow qofkii maqlaayo oo ilmo yar hadda soo kacay oo teen haystaan gabdhaha 15 14 16 17 haystaan bal inta la fiirista gabadhaada weydii hooy maxaa rabtaa inaad guursato waxay kaaga soo boodaysaa nin Soomaali marba inaan guursado gabar walba waxay ku leedahay nin Soomaali marba oyo nin Soomaali no I don't want to get married with nin Soomaali kabaran maxaa keenay naxariistii idinka tagtay arkoosa hooyadooda balanbareysay u jeedo oo qofna caawinaynin ilmihii bay jirta maanta waxa u sii wada iskuulka in hooyale iskuulkaas waxa dhici karta nin inuu taagnaaninba wiilal way jiraan oo maasha Allah tabarakallah iskuulka taagan way jiraan oo mataqaana meel walba taagan ma badno 100 ka maybe 20 waay 80% male 80% gabdhaha ayaa taagan oo meel walba taagan isbitaal ayda taagan iskuul ayda taagan that is why cunugii marka ku soo weynaaday ninkaana waxa waa only wuxuu yaqaanaa sida loo shaqeeyo email fadhi ku dir oo halkaan oo inta tagtid why aad fadhi ku dir maxay ku sheegaysaa gurigan aad burburinaysaa waad bixi koo kala zero ka soo dhisaad mid kala aad mataqana guursanay waa the same it's not different waxa la yiri mira ee kugu jiro Allah guntiga ha u daadina mid saaran geedka ya kuwaan alla ku siiyay
kuwaan baad banaanka keento alla ku siiyo adig wax kaa sugaya inaad mataqaana tarbiyadoodii iyo time inaad la qaadatid iyo inaad geystid ilmaha markaa tiinkoodii inay soo kacaan waxay rabaa basketball inaad ku qortid la rabaa mataqaana swimming inaad geystaa la rabaa waxaa rabtaa inaad geystid kaarateen waxa la dhahaa inaad geystid ilmaha inaad biisa ka dhigtod gabadha saas ugu wareejis kuwa kale ayada meel la fadhidaa ma samayn karto ya gabdha waxaad arkaysaa niman qabaan haddana u behave garaynaya gabdhaha aan nimanka qabin camal ninaa guriga kuu joogo laakiin waxaa lamid tahay gabadhaas oo ninka aan qabin gabadhaan ninka aan qabin la gari ado nin baa ku qaba ninka meedi xaguu jira only wuu soo shaqaynaya only he knows all how to work taas race laguma race garayn kara family that's not raising family ma la dhihi karo ya ilmaha waxay rabaa time waxyaabaha lagu soo shubaa inaad ka shubtida loo baahan yahay ilmahaada waxaa la rabaa inaad la sheekaystaa la rabaa ilmahaada tinka inaad dhey maanta aad mataqaana habeen maalmo aad aadin mataqaana ee wiilashaada intaad ka isti gabdhaha weyn oo soo kaceen 15 iyo 16 ka jiraan kaxee dinner iskula taga ee lunch iskula taga sheekayst waxba ku jiro ilmaha ka guuxay ka soo dahari cunugan waxa ku jiro oo ka guuxay madaxiisa la sheekayso very close ku noqo that is called mataqaana family father marka anigu inaan igu dheereeyo ma rabin waxyaabahaas ayaan rabaa inaan ka hadlo waa waxyaabo sanadooyin iga guuxayay oon yaabay oon saa intaan u yaabay baan u yaaban ilaa hadda waxa inaga qaldan la garan waaye waxa Soomaali horta Soomaali waxaan soo inkaaray ma garanayno meel unbay horta inkaar naga haysataa ma naqaano gabdhihii nimanka haysteen inay u nool yihiin ninba inuu qabinba iskuul ayda taagan isbitaal ayda taagan meel walba ayda taagan basketball ida cunug geynayso kuwa kale xeen oo 4 iyo 3 wada ooynayso wada qaylna guriga u fadhiyaan gabadha xagee iska qabanaysa marka waayahay cunugaadi marka soo koraayay fiiri muxuu arkayaa marka he have seen in everything hooyadaas qabanayso arkjeeda ilmaha wadanka ku koran waa very smart waa adaa lagu dirsaday way ku arkayaan ya haddaad good father waxay ku dhaana I want to become like my father haddaad tahay good father wuxuu ku leeyahay fatherka aabahayga kale inaan noqdaan rabaa sida aabahayga kale oo hooyadii u jecel yahay inaan gabadha dhow guursan doono inaan anigana saas jecel u tusiyo caawiyo garabkas ilmahaadana way ku arkayaan that is sida aan marka qaabka aan u bedeli lahayn aan raba inaan inii soo wado qaabkaas waaye waana inii soo wadaa more ee idin soo wadaa insha Allah wiilka Soomaaliyeed dhageysanayna bal waa ka igu soo qor commentiga bal waxa aan sheegay haday been tahay waa is reality oo socdo waa soo weydiina tinka noo soo baxayaan bal su'aashiga ani soo weydiiya rabta inaad guursato ma ay ku dhaan Soomaali ma raba inaan guursato waba ka horkeenaan waliba igu xanaaqsano waliba qaar dhahay iyo ma taqaana iyo waxyaabaha la nicib iyo in ilmaha dhaan waaragteen saasay ku dhahan intay wajiga bedelaan why what cost the father kan waayo oo mataqaana guriga ka maqano jooganaha maqanahay maanta dhan waxa la taraaga ku maqanaa leeda taraaga maanta dhan cid ku dhahda mala saarnaa marka aad taraag ka soo degtid ilmahaada markaad nasatid I know you tired ada xataa ilaa maanta dhan wax baa saaran bili aadan baa tahay laakiin the same time ilmahaada time la qaado oo gabadhaada naxariisto oo gabadhaada ka nasi ilmahaasayto bila calayk intaas ayaan marka idinka tagay intaas ayaan ku akeena inaan dheereeya ma rabi waa idin soo wadaa more and more marka qasa kale oo idin soo dhiibay oo gabar ii soo dhiibtay oo xanuun badan oo laba ka sameeyay 3 waxaan ka sameeyay part 2 part 1 part 3 aan raba inaan ka sameeyo qasadaasna dhagaha u haaya gabdhaha waxay ku socotaa weligood aan shaqaynin oo guriga joogaan oo mataqaana ninkaas uu shaqaynayay ninkii ay u fadhiday oo weligeed shaqo waano ilmihii u rees garanaysa layra wuxuu ku sameeyay gabar layra wuxuu abaalkeeda kaga sameeyay aan idin soo wada oo 3 qayb ka soo dhigo doon haduu Ilaahay yaraa marka waxa idinka tagay khair iyo baraka ayaa idinka tagay gabdhow ii noolaada iyo wiilasheena kulligeen I love you guys ma aha inaan dad isku dirooyo laakiin waa waxyaabo iga guuxay oo rabo weligay inaan ka hadla ayaan rabi waxyaabihi ayaan raba halka inaan ku soo fufuro idinkan ID iga qaad waxa adiga mataqaana ku afaca ka qaada waxaan ku afacana qashinka ku toor marka waxa inii leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh